ujeedooyinka shirkan waa labo. Kow, sidee loo abaabulaa loona mideeyaa cudurada qurba joogta si ay dalalka ay joogaan garab iyo gacal siin karaan arrimaha laga wada midaysan yahay. Tusaale, arrimaha xawaaladaha. Tusaale, arrimaha laamaha socdaalka iyo sharciyada. Tusaale, hiddaha afka suuban ee dhaqanka Soomaaliyeed waxyaalaha laga midaysan yahay. Labo, sidee loo maareeyaa oo si agaasiman loo habeeyaa waxtarka qurba joogtu ay ka tarto dalkii hooyo ee Soomaaliyeed. waxyaalahan rajayn lahaa kulligeedna aan jeclaan lahaa inay nagala qayb qaataan shirkan inuu ka soo baxo in la yigleelo dallad ama madal Soomaaliyeed oo ka dhamaysa labadii ujeedooyin. waa qof kasta Soomaali aan la sheekaysta wuxuu ii sheegaa familigiisa gabar fool inay ku dhimatay uur inay ku dhimatay marka waa barabaleen na wada taabanahay gabadhaas inay u badan tahay markay dhalaysa inay dhimato haddii ay dhacdo leano way u badan tahay tii ka badbaadan marka umusha ayadoo nool waxay u badan tahay way ku horreey inay dhimato waxaas oo dhan hadday kasoo gudubta cabla oo ayadoo nool ay dhashay ay faraxday waxbaad soo contribute karays ee isleedahay waana percentage badanaa dhimanay laakiin tii wax soo contribute karaysay waxay u badan tahay wixii ay rabtay giftigii ay waday bil uusan noolaanayn ilmaha Soomaalida oo aan hal bil gaarin dhimashadooda statistics ma rabi aan ka hadlo dareenkayga rabaa inaan la qaybsano. I have seen the positive efforts of diaspora returning in Somalia. I have also seen it here in Istanbul on June 2012 when we hosted over 300 civil society actors. shirkan halkaa lagu qabtay qiimaha ummadda Soomaaliyeed uu fadhiyo runtii qofka halkaa fadhiya waxaan aaminsanahay ilaa xad uu dareemi karaa laakiin maanta idaacadaha marka laga maqlo guud ahaan mass communicationka marka laga maqlo waxaan u malaynayaa waxaa laga filan karo oo ummadda Soomaaliyeed ay ka sugayso inay noqon doonaan wax ayaga wax tari doona mustaqbalka. waxaad aniga ii doorateen hal waxaasoo dhan laga sugayo dadnimada daacadnimada kartida dulqaadka waxyaabahaasoo dhan hawl laga sugayo ayaad ii doorateen waana hal runtii aad iyo aad u adag waxaan filayaa anigu inaan dadaalo insha Allah oon isku dayo inaan waxyaabahaas laynoo doortay ee la sheegay muhiimadda ee u ah sumadda u ah ama u ah inay inoo saamaxaan inaynu gaadhno meeshii aynu ku soconay anigu inaan intaa insha Allah ku dadaalo idinkana sidoo kale waxa la idinka baahan yahay inaan intaasoo kale la timaadaan. furkan aan ugu talagalnay inaan North America ku furno waxa weeye ujeedadiis inaan nagala qayb qaadatiin oo noqotiin member noqotiin waxyaabaha uu ka shaqeyn doono ururkan waxaa ka mid ah kow inuu promote gareeyo inuu luqadda af Soomaaliga sidii lagu badbaadin lahaa loona kobcin lahaa afka Soomaaliga sida carruurtiina halkan ku dhalatay ee luqadda Soomaaliga uga bartaan. mid labaad oo ururkan ka shaqeyn doono waxa weeye inuu mobilize gareeyo oo advocate gareeyo dadka Soomaalida qurba joogta Soomaaliyeed si ay community ku nool yihiin ay uga faa'iideystaan wax ka qabsadaan at the same time wadankii Soomaaliya ka soo tagnay ma ina mataqaana si positive la u caawino waxa ururkan ka mamnuucan doona global Somali diaspora waxa mamnuuc ah siyaasadda waa non political non partisan anagu siyaasad shaqo kuma leeyin mana gali doono sharaf weyn way tahay maartay inaan waxna idinka sheego Soomaalidu taariikhdeedu waxay tahay iyo waxaan u malaynayo walkay iga horeeyay waa tuu sheegay 20 sano waxaan ku jirnay xilliyo mugdi ah xilliyo aad iyo aad u dhibaato badan oo qofka Soomaaligu runtii ama Soomaaligu waxa lagu lamaanaya
waxyaabo aad iyo aad looga naxo oo laga argagaxsa yani Soomaaliya masalan waxa loo arkay markuu dibadda joogo Soomaaliya marka la yiraahdo inay la soo xusuusto masalan burcadnimo in la soo xusuusto bililaqo in la soo xusuusto ii sheeg baahi in la soo xusuusto cudurro in la soo xusuusto dawlad la'aan waxyaabo aad iyo aad negative u ah ayaa lagu associate gareeyay qofkii Soomaaliga talyaani baad baratay buugta talyaaniga ku qoraa wixii kaaga baahnaa kaaga soo baxaya waa fure ama waxa loo bartaa afka in dantaada ummadaha kale kaga quunsato iyagana danta ay ka leeyihiin aad ugu qumiso adigoo aan hoos u dhigayna macluumaad inaad u basaasta ma ahane dan buu leeyahay oo adduunka dhan uu isku xiran yahay sida faraha kale isugu xiran yihiin meelaha aan ku noolahay iyo magacyada iyo midabada ay loo kala duwan laakiin dadku nolosha waa ay wadaagaan meel kasta ay joogaan labadan wax ka baxsan oo af loo bartaana ma jirto afka loo barto inaad afkaaga ku bahdisho oo aad uga cararto oo mid kale lagu faano oo sida calalkan qoorta lagu xirto loo barto marka meelan may ku xusee tawani sidaadi dhalinyara oo dalka xornimadiyan dagaalameen oo aydiyada ama fikradda la kooyeen dhalinyara SYL ilaahay naxariisto jannada firdawsan ilaahay ka waraabiyo hawsha ayada min gabadan markaa iyadan ka mahadsanaan xilligii ayada hawlahaas istaageen dhalinyaradaas xilli oo lambaahin yahayti oo dad waaweyn ama odayaal sidaas oo in ishaysado in ay dalkan ka istaagaan ayagoo la waaysan dhalinyaradaas oo kiinka weyn 29 jir ama 30 jir la ka qiyaasa wahay oo aqoontii ayagana markaas haysadayaan aqoon had sarsare anaga hadda ka tartamoyna ma anaga hadda ka faanoyna lahayna ayagoo lacag aan dhawayna ayagoo oo maaragtay qori aan dhawayna ayaa xoriyadii akhlasho iyo iskaasho wadannimo islaamnimo iyo maaragtay Soomaalinimo iska gacan qabsadeen dalka sidaas oo laba dawladood labada gees ka haysadaan Ingiriis iyo Talyaaniga ayaga magaashan ku guuleysadeen ولقي ماركتين هول محل يجري كلام أو هل أنا أشقيه أنا الغير كان ونوسو برمدين ما نقول عيال كيسة مس ساوي مري ودنا نمدو والله بشاية إسكا جمد ديجو مركا this is مالبي المركزة نكلنا آدي مهد سنتين رنتي إن سكال جعلتويا اسم الهين إنتانا أيال صوب بحين دونا مركا وحن لينا يا أنيجو أو full time شقية أو قف وعيالة إبو حريرة oo maxaa la dhihi jiray ciyaal yar yar ma dhihi karo laakiin ciyaal igu xiriira oo hooyo ah oo maxaas ah hadaan intaan gacan ka geystay oo qabtay I think qof kasta uu qaban karaa sanad kasta 20 kun wax ka badan oo Soomaaliya ayaa badda lagu guraa oo lagu ridaa oo aan cidina u hadlin maxay ku dhacday in dadka jooga Europe meelaha badan kala jooga loo taadiyo lagu tala xaq darada lagu sameeyo discriminationka lagu sameeyo cadaalad darada maxay u dhacday Sweden wadanka leehdo wadan Sweden waa wadamada ugu liberaalsan ugu fiicsan waa wadanka kaliya ee intuu qof siyaasi soo fariistay TV-ga uu dadka Soomaaliyeed magacooda sheegay oo yiri dadka Soomaaliyeed waa dad xun oo qurana sharciga wadankana way ka soo horjeedaa haddana cid kama hadlin maxay ku dhacday Norway in dadka Soomaaliyeed aan loo ogolayn oo ugu badan dadka ugu badan ee minority-ga looma ogolayn in luqadooda loo dhigo dadka kalena waa loo ogol yahay maxay ku dhacday in xawaaladaheenu aynu lacagteena caruurteena ubadkeena hooyooyinkeena curyaaninteena dadkeena waayeelka aynu lacagta ugu diraynay hadda loo dhaaranayo
meel kastoo aad tagto xawaaladaha waa la xidhaya waa loo dhaaranaya hadda Australia ila hadlaysay maanta waa loo dhaaranaya imse qof baad u malaynaysaa gaajoonaya haddii xawaaladaha la xidho imse hooyo ayaan lacagtii loo soo dirayn imse caruur ayaa gaajo ku seexan doona imse dhakhtar iyo iskuul aynu caawinayno qurbaha ayaa xidhmay doona waxaan runtii mahad u celinayaa ammaan dadkii soo qaban qaabiyey dadkii iska lahaa fakarkan in Soomaaliya global diaspora la sameeyo dadkii contribution ka geystay iyo intii ka soo qayb gashaba runtii waa aad iyo aad waxay u tahay fursad in wax u qaban karta Soomaalida banaanka ku nool iyo Soomaalida gudaha ku nool inaan soo xiraa lagu talagalay laakiin questionka aan weydiinay waxa weeye where do we go from here xafladii waa imaanay waa dhageysanay very distinguished dad ah ka hadlay professor gabdho runtii ah community leaders ma saan ku dhageysanaa iskaga tagnaa mise gacan ayaan siinaa waxa weeye runtii dhibkii Soomaaliya gaaray 20 sano ugu dambeeyay wuxuu keenay inuu naga dhigo very suspicious society aad wax kasta ku eegaysa suspicion initiative kasto oo qof keeno waxay noqonaysaa in laga cagjido dadku markuu suspicion ku bato waxay noqdaan risk averse waxay ka dhaartaan inay gacan geystaan inay dad gacan siiyaan soo tuun ba ku jira runtii waxay la tahay waxaan wax ku qaban karnaa gifta dad ah ee naga buuxa waxaan wax ku tari karnaa annagana istari karnaa dadkeena dawladda jooga gudahana wax tari karnaa markaan bilowna annaga dhexdeena inaan is-aamino mudanayaal iyo marwooyin dhammaan martida sharafta leh ee ka soo qayb gashay kulankan galabta waxaan ognahay inay tahay maalin sabti ah dadku danay lahaayeen weliba jawiga xataa roobabaa jiray marka runtii dadkeena ixtiraamay oo kulankan kasoo qayb galay aad iyo aadaan idinka mahad celinayna waa mahadsantiin intaa kadib waxaa sharaf noo ah in maanta uu nala joogo directorka ama agaasimaha guud ee ururka global Somali diaspora sida saaxiibku hadda uu sheegay arrintan waxay haddii aan ku bishii June sanadkan waxaan u malaynay inay ahayd 20-keedii 22-kii aniga iyo Faatimo Faarax waxaana la ka casuumay waddanka Turkiga waxaan tagnay magaalada Istanbul halkaas waxaa isugu yimid dad Soomaali ah oo aad iyo aad fara badan oo gaaraya ilaa 100 qof dadkaasna waxay ka kala yimideen dhammaan waddanka adduunyada daafeeda waxaan kula kulanay dad ka yimid New Zealand Australia Canada Mareykanka South Africa Kuwait Saudi Arabia هذا runtii Soomaaliya dad aad iyo aad u fara badan ujeedada ay dadkaas isugu yimideen waxay ahayd sidii loo abuuri lahaa ururkan hadda aad arkaysaan oo ah global Somali diaspora ama dadka Soomaalida ah ee qurba joogta ah ee adduunyada daafeeda kala jooga runtii in la isku dayo in ay timaado fikrad guud oo ka wada dhaxaysa taasoo runtii ah in sidii halka ay joogaan ama wadamada ay ku sugan yihiin wixii looga baahnaa ugu horeyso afka Soomaaliga iyo dhaqanka in la xoojiyo in wadankii aan ka nimid laftigiisa maadaama dadkaas ay yihiin wadamada ay joogaan dad ka tirsan inay u sameeyaan lobby ama inay u sameeyaan ololeyn sida wadanka wax lagu qaban lahaa joogta inay ku wajahan waxaan ka caawinayna Soomaaliya dadka joogta waxay Soomaaliya ka qabanayaan inay joogtaan ku jirto gaada waxaan da fokuskiina hadda saaran yahay joogta arrimaha haddii Soomaaliya ka hadlaysid waxa muhiim ah وحشيت إيمجك على الصومالي اللي يصير إن مرة صومالي وذكر بعبرانين أدونك صوماليا كل ما بس مثلاً شدوي في هذا المجال كتيرة سيد الكبار منهم حتى الربع مثلا شدوي في عشان رد ما بس مني بدي أسير ممكن يا دليلنا هذا بدون دي أو إن سميسين ما شاء الله لكن محاول لبا أهمود سيد حوالي وكان يهد ورهم وصع أنت سأقول بعد سميسمية marka waxaan inaga rabnaa inaan ugu badinin ururadii hore jiray haday jiraan in aad kala doorataan in ururada la mideeyo aad iyo aad aan soo dhaweynaynaa aad iyo aad aan u taageeraynaa aad iyo aad aan u garab istaagaynaa insha Allah ta'ala hadoo alla idmo jaaliyada Soomaaliyeedna oo ku nool magaalada Bristol مدن عبدي وحكوا بلن قادة سعادية يو أورك أدليد قريني سبينان آدي أتكو تاجرنو
annaga haddaan nahay odayaashii iyo dhallinyaradii iyo dumarkii iyo guddigood waxaan taageersanahay sharafna noo ah in guddoomiyihii qurba joogta Soomaaliyeed oo yahay magaalada Bristol nin ka yimid horena u taqaaneen haddana ku soo dhawaada magaciisa Cabdi Xarada la yiraahdaa waana taageersanahay si odayaasha iyo dadkii hore ay dhaheen anigu ma aqoon ururkan intaan caaw ka maqlay ka badan hore uma maqal inkastoo cabdi ka sheekaysanay ayaan Turkiga wada joognay anigu markaan arkay cabdi shakhsi ahaan iyo markaan dhageystay ururka hawsha qabanayo waa hawl aan ku faraxsanahay shakhsiyan waa taageersanahay diaspora oo kamid ah waxaan jeclaan lahaa waan hubaa in dad badan taageersan yahay in la dhiso oo ra'yiga lagu biiriyo wixii ka dhiman taa macnaheedu markaan nahay midayno maaha midayntu inay hadda dhacday midayntu hadda waa bilow midayntu waa inay socoto hadda waxay hawshani qayb ka tahay inaan caawa halkan aynu ku sheekaysano wax isku weydiino aan runtii jeclaan lahaa dhowto waqti badan aan inoo siiyo inaad waxna weydiisaan waxa weeye in aynu iswareysano fikraddeena ururino cududeeda ururino markaasay midayntuna ay imaanaysaa marka midayntu maaha wax bilow ah waa wax la bilaabay hadda waa bilow waa la bilaabay waana meesha lagu socdo waxaan rajaynaynaa 5 sanadood gudahood insha Allah inuu jiro golo Soomaaliyeed oo dadka Soomaaliyeed oo dhani xanata oo ay aaminsan yihiin oo qofka Soomaaliyeed ee South Africa lagu dilo ay jirto cid u doodi kartaa qofka Dubai lagu xaq daroodo ee Soomaaliga ay jirto cid u doodi kartaa qofka Soomaaliga ah ee Liibiya badda lagu guro ay jirto cid u hadli kartaa We have the same mission ka ay tahay in magac Soomaalida wasaqda lagu rido laga soo saaro dadka Soomaalinimada u dhashay oo ethnicity-ga dadka Soomaalinimada aan mar dambe lagu cayaarin maadaama barnaamijka xooggiisa halkan uu soo jiro maantana ay tahay maalintii afka hooye ee caalamiga ah waxaan u malaynayaa dad badan inay isweydiinayaan maanta halkeebuu afkii Soomaaliya ku dambeeya haatan waxaa isweydiinaya ubadka meeshan lagu dhalay iyo kuwii ka soo horeeyay oo ayagoo yaryar la keenay af Soomaaliga heerka ay ka taagan yihiin marka qofkii xanuunsanaa dadka luqada yaqaan cusbitaalada waxaan adeegsanaa wax la yiraahdo care conference marka qofkan xanuunsan isagu marka laga yaabo xaalad adag inuu ku jiro ayaa waxa isagu imanaya dhakhaatiir kala duwan nursing kala duwan qofka xanuunsan dadkiisii dad kala duwan oo xataa laga yaabo qofka traditionkiisa iyo diintiisa ay ka socdaan kadibna waxa laga wada hadlayaa qofka iyo qaabka ugu haboonaa oo wax loogu qaban lahaa markaan ka qayb galay waxa qolka timid 11 qof ilaa 13 qof ayaa qolka soo fadhiisatay oo hal qof sidii loo badbaadin lahaa isugu timid 3 qofna Skype-ka ama telefoon baan iyaguna ku soo galeen dadka 15 qof ka kooban hal qof baa waxaan ka hadlaynay marka qofkaas xaaladda khatarta ah ku jira qaabka ugu haboon ee qofka loo badbaadin lahaa xaaladiisa haddaad marka isweydiisan waxa inaad tidhaahdeen talow qofka 15 qof ka badan ay isu imanayso oo laga hadlayo xaaladiisa talow ma duqa magaalada miyaa
governorka gobolka laga doorto miyaa nin madaxoo dhaqaalo badan miyaa qofka dadka intaas oo dhan isugu imanayaan laga hadlayo qaabka ugu habboonaa wax loogu qaban lahaa loo badbaadin lahaa wa'ayo waxaan rabaa marka inaan idiin sheego qofkaasu wuxuu ahaa qof madow waddanka qaxooti isagoo ay yimid ayuu ahaa wuxuu ahaa dadka aniga iyo idinkoo kale oo afka aan ku hadlaya ayuu ahaa marka qof haddaan saa marka u badbaadinayno oo halkan aan ka shaqayn in qof saa loo badbaadiyo ka warran kuwa magac diineed dadkii oo jumco ku jira ku laynaya marka waa ayaan darro soo maaha culuuna la seehaya dehenteena loo calaqay culuuna la seehaya dehenteena loo calaqay cibrigu ku raahad casees baa lagu baryay calanka soomaaliyeed oo cirshiga ka nool cirkaad eegtahay rabbigay caweyna ku see allaha soo celiyo sharaftaadii caafimaad. And for us, when I look at the sign that says Somali, Global Somali Diaspora, I think what could be a better way to celebrate and keep your culture together through music. It tells a story of peace, love, and where you came from, and I think it's the most important thing in the world to preserve your story and your wonderful culture through music. So thank you from the Cedar Cultural Center and Augsburg College. si aan bogsasho cusub u gaadhno oo aan mid degdega u helno qof walbow wixii pride kugu jiri jiray ama wixii kibir kugu jiri jiray ama wixii isla weyni kugu jiri jiray waxaad ka hormarisaa danta iyo walaaltinimada iyo isu imaashaha qiimaha ay leeyihiin oo intaad u tagto qofkii aad dhahdo waa kaa gardarnaay waa qaldamay bini aadan aan qaldamin adduunyada ma jiro ya marka inaad si daacad ah hadii ay run naga tahay kulligan inaan heshiino inaan u dhahno waa qaldamay hal iga raali ahaado qofkii loo tago qofkii loo soo hoydo hooyashaan dhihi jirnay annagee qofkii loo soo hoydo loo yimaado inaadna sii qodqodin oo aadna dhihin intaas ma ahayna waa ka badneed oo intaasaad yeesho kanaad yeesho 25 sano 26 sano ka soo wareegatay qof xasuusta ma jiro haddii lagu yimaado oo ay daacadnimo iyo walaalnimo tahay oo raalli ahaaw lagu yiraaho adigana waxaa kugu waajiba inaad ogolaato aad qaadato. So there's all these concerns that are very different when you have kids. And at the same time also there's a very strong concern for identity. So how will my kids grow up? Am I sure that they are kind of respecting and understanding the Somali part of who they are? And there are also, of course, then difficulties with actual returns. We did a report on the situation of Norwegian Somalis, and with that, there's a wonderful graphic illustrations that kind of show people not in kind of academic language, but just through cartoons what people face. iyo tan oo tan muhiima oo iyaduna mid kala ah oo dadkeennii inteena badan burburkii oo ku keenay in nin waliba reerkoodii iyo dadkooda xiriir la yeesho laakiin dadka Soomaaliyeed isku baahan oo isku aqoon oo wax isku arki kara isma yaqaanaan inaynu samayno platform noocan oo kala golaha noocan oo kale inaynu ugu soo barano ambassador u noqdaan dib wadamada ay ka yimaadeen link u sameeyo oo dib ugu celiya mid kale waxay tahay waxyaalihii uu cabdi u sharaxay oo ahay in aad heshid jid uu saamixi lahaa inaad baahida meesha ka jirto xirfadaada ku dabuushid xafiiskaas ka shaqeynaa waa gudaha inuu isu keeno diasporaha kala duwan inuu ayaga oo local noqdo iyo localkii waddanka jooga isku xiro inuu diasporaha maqan xirfadahooda iyo waxtarkooda si toos u gaarsiiyo meelaha baahida ka jirta ilaxidho ammaana bay ubadkeeda seexisaa kala awran labadu edeb iyo asruube aqoontay isku dhaafkada kala awran labadu edeb
kaashadaano isla kaashadaano isu siiyo wacan isla kaashadaano isu siiyo wacan indhahayga murgay ilgowsadeedu adna hayskukaylaaine uun hooyagaa Nothing. How can we be humans and live in a world like this? What sort of world are we leaving for our kids? Justice for the migrant workers in South Africa who are brutally killed. Justice, justice. waxaan halkani keenay in aan aad uga xumahay walaalahayaga Soomaaliyeed rag iyo dumar bay isugu jira ee lagu leynayo istriidyada Johannesburg gobolada kale ee sida Pretoria gobolka Durban ay xukuntay leedahay KwaZulu-Natal dadka dhibka loo geysanaya shacabka iyo dadka Afrikaanka iyo fellow brotherska ee kale ee qaybaha kale ee ka imaanaya Afrika ee la dhibaataynayo war xoogaa yar isu fiirsada ma garatay oo haybad iyo sharaf isu yeela ummad oo dhan wayna la yaaban tahay dadka iyaga waxay dareemayaan inaysan dad lahayn inaysan dawlad lahayn dawladda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay inay jiifka ka kacdo runtii ay maaragtay dadkeena ku tabaalaysan South Africa iyo kuwa Yemen ku tabaalaysan intaba ay gurmad u fidiyaan waxaan kula talinayaa walaalaheena meel kasta ay joogaan inay midoobaan ay ka midoobaan sida ay dantooda guud ay runtii u gaari laayeen maanta halkan waxaan isugu soo baxnay kuligeen annagoo magaalooyin kala duwan ka imaanay annagoo maaragtay araayo kala duwan iyo waxa laga yaabaa siyaasado kala duwan aaminsan waxaana sukaaya keenay waa dhiigga Soomaaliyeed weeyaan kuligeen Soomaali baan nahay Soomaali danta guud waan u taaganahay kuligeen marka midooba ma idin leeyahay yiri toddoba bari baa mudaharaadaynay South Africa si ay xorriyad ku hesho maantana abaalkeena waxay ka dhigaan waa aragtaa iyo dhibaatada ay ku hayaan Soomaalida ku nool South Africa waxaan qabaa haddaysan Soomaali u istaagi lahayn maanta inay stiil ku jiri laayeen gumaysigii South Africa waxaan leenahay dawladda South Africa sida ugu dhaqsaha badan inay wax uga qabtaan dadkiina laga dilayna xaqoodii iyo magtoodii ay dhiibaan marnaba ma qaadan karna Soomaalida lagu gumaadayo South Africa marka waxaan leenahay Soomaaliya hal mid noqda xuquuqdeennana hal mar aan soo dhacsano dhibaatooyin wadamada qurbaha naga kulmay way marka Soomaaliya waxaan leenahay xuquuq badan baa naga maqan xuquuqdeena aan soo dhacsano hay commissionka South Africa waan u gudbinay run ahaan maanta waxaan ugu talagalnay mudaharaadka laba qayb aan u kala qaadnay dadka maarata shaqeeya iyo ardayda yararka oo iskuulka dhigatay inay maanta noo yimaadaan run ahaan maanta way noo yimaadeen marka waxaan jeclaan lahaa actually in Soomaali aan isku duubanno aan ka wada dhiidhanno oo maarata Soomaaliya oo dhan walaalo aan noqono gacmaha is qabsano message aan u dirayaa waxaan leeyahay Soomaaliya waa one nation noo qabyaalad noo qabiil ha noolaato Soomaaliyana waxaan dhibaatada naga saari kara annagoo enjoy together ilaahayna waxaan ka baryaynaa Soomaali meel kasta ay joogto ha israacdo ha noolaato ma fahanti waxa adduunka iigu sii darana Soomaaliya wixii dilo ama dhibaateeyo cadawga Soomaalida South Africa ha dhacdo ha israacdo Soomaaliya waxa sharaf weyn ah maanta inaan halkan ka salaamo walaalahayga Soomaaliyeed ee ku nool dalka Ingiriiska waxaana jeclahay inaan kala hadlo arrimaha la xiriira doorashada ku soo wajahan ee dhici doonta bishan soo socota toddobadeeda anigoo ka faa'iideysanaya khibradda aan u leeyahay arrimahaas waxaan jeclahay inaan ku dhiirigeliyo walaalahay inay ka mid noqdaan doorashada oo ay codeeyaan runtii muhiim maaha xusbiga doonta u codee waxaa muhiim ah in qof kasta oo Soomaaliya uu codeeyo oo la maqlo codkooda taasi waxay keenaysaa in aad ku dhex yeelataan bulshada aad la nooshihiin ama qayb ka tihiin
ixtiraam awooddiina siyaasadeedna ay muuqato sababaha ay u tahay muhiim waxa weeye walaalayaal doorashada haddii aan u kala qaado laba qaybood qayb waa doorashooyinka lookalka ah ee aad ku doorataan konsularada qaybina waa doorashada weyn ee guud mid kasta faa'iido weyn ayay u leedahay ama bulshada u leedahay ama gaar ahaan qof kasta oo muwaadina u leedahay haddii aan hadda tusaale ahaan usoo qaato doorashada lookalka ah waxay ka turjumayaan baahiyaha asaasiga ah ee idin haysta iyo duruufaha guud iyo duruufaha gaarka innaga inoo ah haddii aanu nahay dadka ka soo jeeda Soomaaliyeed qowmiyadda Soomaaliyeed haddaad tusaale ahaan eegtid waxbarashada xawaaladaha halkan hadday joogsadaan waxay dhibaato ku imaan doontaa bulshooyinkeennii inaga dambeysay iyo saaciidaadan saaciideyno marka si arintaas influence iyo saameyn ay ugu yeelato hadhowna ay ugu darsadaan ajandaha waxyaabaha ay ula shirtigi doonaan dadkii soo doortay inay baarlamaanka dhex geeyaan qof kasta oo wadankan ku nool يعني oo sharci ku jooga wadankan wuxuu leeyahay xaq buu leeyahay xaqaas waxa kamid ah inuu codeyn karo codeyntaas marka waxa weeyaan qofku waxay siinaysaa fursad inuu kaga qayb qaato maamulkii markaas laga dhisay ama gobolkiisa ha ahaato magaaladiisa ha ahaato ama midii wadanka laga dhisay run ahaantii baraarugu sanadihii hore hadda ayuu dhaamaa gaar ahaan magaaladan ka nimid oo kale Bristol dadaal far badan ma sameynay dad far badan ku dhiirigelinay inay isdiiwaan galiyaan waxaan ku dhiirigelinay in ay ka qayb qaataan doorashada oo ay codkooda bixiyaan marka runtii waxa muhiim ah in dadka Soomaaliyeed lagu baraarujiyo codeyntu ma iska codee waxa weeye waxa ku xiran danahaaga kuryahaaga dhibaatada ka haysata iskuulada waxa siyaasiga lama xisaabtami kartid xaqna ugu ma balihid hadana la coday baahi guud oo balaarna way jirtaa ta Soomaaliyeed oo ah baahida guud in wada leenahay dhamaanteen oo ah maxaa xisbiga waxa noogu wanaagsan kan mid baa qaadkii naga joojiyay laakiin xawaaladii baa dhibaato ku jira mid kala wuxuu ku fiican yahay wadankeennii hooyo inuu developmentiga ama lacagta ay siiyaan u badiyaan mid baa wuxuu ku fiican yahay ciyaalka lacagtoodii baa cirka la geeyo ilmihii yar hadda iskuul ma aadi karo markuu jaamacadna ma wuxuu kala soo baxay 27,000 marka qaarkoodna midba wuxuu wataa negativekiisa iyo positivekiisa dadkan maaragtay xisbiyada maaragtay madaxda u ah ama maarkin waxyaabaha maarkin kulli ay yani ku faafinayaan araadooda waa wuxuu ku qoran yahay afka Ingiriisiga ku qoran yahay jiilku waa weyn waxaan u arkaa say u fahmaan way adag tahay sababtoo waxa weeyaan waxa laga yaabaa inay TV-yadan aysan daawanin oo doodaha marka la sameynayo aysan maaragtay aysan dhageysanin oo daawanin muxuu ahaa waxyaabahan maaragtay la soo qoro ee maaragtay macluumaadka ama guriga laga soo ridayo maaragtay albaabkiisa ama haddii kaleba meelaha kale loo qaybinayo meelaha lagu soo dhijinayo waxa laga yaabaa inaysan danaynin ama aysan akhrinin waa doorasho xisbiyadii waaweynaa ee Labourka iyo Conservative-ka oo kale ay u badan tahay inaanay ku kala baxayn oo ay noqonayaan waxaan ay afka qalaad ku dhahdaan nick and neck oo ay sinaanayaan maadaama ay isku mid noqonayaan dadka minority-ga ah black and ethnic minority groups ka loo yaqaano iyo axsaabta yaryarba waxay yeelanayaan saameyn xoog leh doorashada guud ahaan waa muhiim dadka Soomaaliyeed gaar ahaan inay codeeyaan oo ay doorashada ka qayb qaataan waa muhiim laakiin tan sanadkanina way ka sii muhiimsantahay sanad ugu arko maadaama ay kala bixi kari laayeen axsaabtii loo badinayo inaanay kala adkaanayn dooda caaw waxaynu qabanaa muhiimad kale maaha waxaan doonaynaa in dadka Soomaaliyeed daawadaan waxaan doonaynaa inay ka faa'iideystaan waxaan doonaynaa ficil sameeyaan